warbaahintan ay leeyihiin raashinka Sputnik ma la yiraahdaa ay waxay soo saareen taqriir waxay yiraahdeen ماذا سيحدث إذا اتحد العرب ما حد دون إذا كان عندنا بيدا هدي عربي مدودة هذا مسلم كردن ماها وأنت عرفتها هذا هدي عربي مدودة ما حصابح لها هذا سيدة قضبة صوص عضاء من لها هدي عربي مدودة الناتج القومي GDP وحصوصار كوطنك وحنا قندونا 5 trillion 990 billion دولار بنقدونه يعني إنتاج كده محلي وحصار كمركز عرب لا يسكت روح نقدونه حوالي 6 تريليون ودو سنة كيبا وحنا بكبر ناندونه قرب إليه مريكان يا تشاينا يا الاتحاد الأوروبي مركز وطن كأفراد الدنيا وكل قالوا وين بين نقدونه dhulka ay degayiin intay leegtahay haday isku darsadaan bay dhaayeen ta carabta sheegata 13 milyan iyo 500 oo kun oo kilomitir murabbac bay leeyihiin dhul ah sukaanta degani way misadadkoodu waa 385 milyan wadanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan China iyo India qura carab ka badanaysa marka la isku daro wadanka saddexaad ee dunida ay noqonayaan ciidankoodu intuu leekaanayaa bay yiraahdeen ciidanka carbeed bay yiraahdeen waxay imika haystaan hadii la isku daro 4 milyan oo askari 9,000 oo diyaaradood oo dagaal 4,000 oo diyaaradood oo helicopter ah 19,000 oo dabaabadood iyo 51,000 oo gaari dagaal bay haystaan bay yiraahdeen waa inta inagu isku dildilayna una la isugu duulayo waa ciidamada dunida ugu xoog badan wax ku dhadhoobay soo baxayaan dhulkooda beeruhu muxuu noqonayaa bay yiraahdeen 84 milyan oo hektar ayaa Suudaan oo qura ka ah bay yiraahdeen dhul beereed la beeri karo taa macnaheedu waxa weeyaan bay yiraahdeen Suudaan hadday beertaan 760 milyan oo tan oo sarreenay soo saari karaan sanad kasta 370 milyan oo neef oo ay ku beeri karaan 410 milyan oo neef oo adhiyay beeri karaan 850 milyan oo digaag ay samayn karaan waxay yiraahdeen saxaraha Liibiya oo qura 8% kamid ah hadii lagu xidho maxaa la yiraahdaa solar system hadii lagu xidho 8% saxaraha Liibiya kaliya 20 milyan oo megawatt hour buu soo saaray yani dunidu leeyd uma baahna saxaraha ku yaala Liibiya 8% kamida hadii loogu xidho bahalkaasi dunidu waxay nal u baahanto dhan iyaga sabalay gareyn kara bay leeyihiin waxay tilmaamaan shidaalka dunida 24 milyan oo barmiil bay maalin kasta soo saaraan macnaheedu waxa weeyaan waxa shidaal dunida laga soo saaro thuluthkeed ay carabi soo saartaa wax ku dhadhow zakada bay yiraahdeen xoolahooda 2.5 ka ah xoolaha maxfuudka oo qudhe bangiyadooda yaala hadii laga bixiyo 29 milyan 29 bilyan oo dollar oo zakada sanad walba ka baxaya iyagu de zakada cid la siinaya ma yaqaaniin xaq dhismaha ula kaceenay waxay yiraahdeen hadii dhismo lagu dhiso sanad kasta waxay dhisi karaan bay yiraahdaan 25 magaalo oo min 1 milyan oo qof ku nooshahay oo 10 dhakhtar oo midkiiba uu qaadi karo 550 sariirood oo leh 20 iskuul oo iskuul kasta uu dhigan karo 3,000 oo arday oo leh 3 madaar oo 10 milyan oo qof sanadkii ka soo degi karto oo leh 7 jaamacadood oo jaamacad kasta 25,000 oo qof dhigan karto yani xoog carbeed waa ka waa carab qurayn ka warramayna muslimka ma warramayno 68 dawladood oo muslima jira 56 kamida ba ku jira qoladii maalinta dhaw jiraysay taawun islaamiga kamida masaaxada dhulku almost wala 200 milyan oo kilomitir murabbac marka la isku daro muslimiinta idan ayuha al-ikhwa xooggeena inaynu sida awrta aakhira aragna ma hay waxaynu u baahnaa inaynu madeena xooggeeda tusno intay dunida joogaan hadda aanay ninna u baahnayn caalam islaami nuclear power wuu haystaa
وأقونيها وهايستا oo dhalin wuu haystaa oo dhaqaale wuu haystaa oo dhul wuu haystaa oo xoolo wuu haystaa oo wax bini aadam uga baahan yahay dunida ku nool ma jiro aadanaha kale wuxuu isoo dhan uu ka maarmi karaa haddii aqli uu yimaado